This episode waxaan doonayaa inaan kala hadlo aan pre-production. Pre-production waxa weeyaan qorsheynta qofku markuu qorsheynayo maalintu wax duubayo. Marka maalinta wax duubayso wixii ka horeeyo dhan ayaa noqonaya pre-production. Hadaba pre-productionku waxa kale loo yaqaanaa the development stage. Stage-kad wax ku develop gareynayso, stage-kad wax ku dhisayso weeyaan. Waxba ma duubin, waxba ma edit gareynayso. Waa stage-ka koobaad with the first step weeyaan of filmmaking ama documentary filmmaking. Marka la duubayo, laba nooc baa loo duubaa. Mid waa documentary filmmaking, midna waa filmmaking-kii caadiga ah oo la kala yiraahdo fiction and non-fiction. So fiction, it's filmmaking. waxa looga jeedaa waxyaabo khiyaaliya la matalaya, and then you have non-fiction ama documentary and interviews ama waxyaabo kale oo barnaamijyo kala soo galaya. So all of them waxa isku dhaafaan just documentary filmmaking. waxyaabaha ugu weyn ee ku kala duwan waxa kamid ah midi horta waxa weeyaan topic driven, midna waa character driven. Topic driven inta badan waxa ah documentaries because actor male anytime aad duubayso film and documentary amba aad duubayso barnaamij oo kala saaran qof actor oo lala socdo male, laakiin topic bay leedahay. You're following a topic. laakiin marka duubayso on filmmaking, it's character driven. qof baad daba socota sheekadiisa, qof baad dhageysanaysa oo actor ah oo maqlaysa oo daawanaysa. laakiin marka documentary la duubayo inta badan it's just a topic. sheekad la soconaysa, barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay waa waxa. laakiin filmku waxa uu ku saabsan yahay, laakiin haddana shakhsi ayaad weli daba socota. marka it's character driven, kan kalena it's topic driven. waxyaabahan u baahanahay inaan qorshahayga sii diyaarsado waxa kamid ah marka koobaadba the idea waxa weyn inaan qoro amba aan ku qoro Google Doc oo halkan computerkii hor yaalo, amba aan qoraal gacanta ku qoro, ama mobilkayga aan ku qoro notes. The first thing I need to do waxa weyn inaan qoro the idea, in aad hesho location-kii aad kaga duubi lahayd. maanta haddaad tiraahdo documentary aad u xasaasi aan duubayo qiiro oo saara oo arin naxdin leh ku saabsan ayaan duubay haddaad tiraahdo, dee maanta qofka garoon lama tegi karo. garoon lagu ciyaarayo background-ka ciyaaraya kale lama tegi karo qofkii. marka waa inaan location ku habboon aan qofkii geeya. ta saddexaad waxa weeyaan composition. Composition waxa la isku yiraahdaa isku geyn weeyaan, from kamaradaadii to sameecadii to lightkii to an audio isticmaalaysay to microphone-kii, waxaasoo dhan baa la isku yiraahdaa composition. meeshaad kamarada dhigi lahayd, halkaad qofka fadhiisin lahayd, halkaad leerka kaga qaban lahayd, halkaad microphone-ka kaga xidhi lahayd, waxaasoo dhan baa kuu fududaanaya. Budgeting and scheduling. marka labada inta badan waa la israaciyaa, budgeting and scheduling, because if you don't schedule, budgetkaaga ma habeen kartid amba xisaabtaada iskuma fadhiisanaysid. Scheduling waxa weeyaan inaad saxdo waqtiga qofka waqtigaad u yeeriso, waqtigaad duubayso, inaanay cidna waqti ka lumin. alaabta haddaad soo kireysatay xilligii aad soo kireysatay waa inaad tiraahdaa saacadaasaan haystaa, saacadda waan ka faa'iidaystaa, 2 saacadood baan haystaa, 2 saacadood waan ka faa'iidaystaa. marka scheduling is important. adiga iyo qofkaad ka duubaysana haddana inaad wada ogaataan schedule-kii, taasina waa muhiim. equipment-kaad qaadanayso waan sii nigeystay waxaan doonaya inaan duubo, waan sii arkay waxaan doonaya inaan duubo, haddaba qalabkii aan ku duubi lahaanay taadetana waa inaad falowgada gashaa ood ku dadaashaa in equipment wanaagsan aad qaadanayso oo equipment tayo leh inaad qaadanayso oo wixii aad nigeysatay kuu suuro gelinaya. haddaba barnaamijyaadka soo socda waxaan doonaya inaan ku macneeyo production iyo post production.